Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Khadar Micaad, kusoo dhawaada mar labaad channelka. Saan hore ula soconay, waxaa inoo socday koorsadeenii ahayd Photoshopka, taasoo oo aan kaga soo hadalnay casharkii hore. Qofku markuu isticmaalay marka u horeysa, bogga hore wuxuu kala kulmi doono iyo muxuu ahaadane siduu document cusub ama page cusub u furi lahaa oo uu ugu shaqayn lahaa. Marka intaa markaan ka imano, waxaan jeclaystay in aan maalin walba maaha, yani cashar walba aan kusoo qaadano wixii tool aan u baahannahay ee aan markaa aan u baahannahay inaan ku shaqayno ama muxuu ahaadane hawsha aan u baahannahay aan ku fushano. Marka maanta barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadanaynaa marka qofka uu sawir galo. Badanka waxyaabo waxaa jira sawirada qofka dadka markay galaan ku sameeya distraction wax la yiraahdo. Distraction waxay ka dhigan tahay yacni qofkan sawirka daawanaya ama aad rabto inaad u dirto waxyaabo waxaa jira aanad rabin in uuna arko, laakiin isla markaa sawirka aad gelaysay ku ag yaalay oo aanad yacni ogeyn in ay sawirka ku jiraan. waxani kaba soo qaad telefoon oo kale, kursi oo kale, muxaadane yacni wixii aad markii sawirka aad gelaysay aanad ogeyn in uu shaygan ku ag yaalo. Marka waxaad rabtaa shaygan ma rabtid in uu ku ag yaalo, laakiin sawirkii waxaad rabtaa in aad qofkii u dirto, ama client ha noqdo ama muxuu ahaadaanay sawir qof private oo adigaagan caadiga isticmaalaysid ha noqdo. Waxa aan ka wada hadalkayga haddaan miisaal halkan kusoo qaadanaynaa. Document cusub aan furaynaa. Halkan waxaa inoo yaala allahuma salli calaa maxamed laba sawir. Iminka sawirkan waxyaabo badan oo indhaha soo jiidanaya ayaa muxuu ahaadaanay ku jira. Muxuu ahaadaanay iminkaba soo qaad naagtan markaad sawirkan aragto waxaa isleedahay ma xayisiinba, ma coffee bay xayisiinaysaa, ma tabletkin bay xayisiinaysaa, ma sawir private ah qof baa iska qaaday. Yacni meel loo qaado ma laha. waxa lagu kala ogaan kara keliya waxaa waaye last product oo agteeda yaala. Iminka kan haddii agteeda ay ka qaado, kaas haddii agteeda ay ka qaadi lahayd, kan haddii agteeda ka qaadi lahayd, waxaa la isdhihi lahaa waxaa waaye private, yacni qof oo sawir oo portrait ah. Marka waxaan kaba soo qaad waa qof xafiiskiisii jooga, laakiin shaygan malaha muu ogin markuu sawirka u gelay inuu yaalo. Muhiim maaha kan inuu meesha yaalo, waa qofku dhaato haystaa. Iyada laftirkeeda waxaa laga yaabaa inay ilowday oo isdhahday markii dambe kan in aan shadada ku riday ahayd waan iloobay. Marka meesha uu kan yaalo kaba soo qaadba wax oo aanad rabin inuu markaa yaalo ku hilmaamtay sawirka markaad gelaysay ayaa yaala. Hadday noqoto shanlo ama saqaf, hadday noqoto miftaax, hadday noqoto telefoonkaaga oo shaashada kaba soo qaad ay jaban tahay oo aanad rabin dadka inay ka arkaan, iyo wixii la halmaala. Marka sida looga qaadi lahaa waxaan adigoonan backgroundkan saamayn garayn ayaan maanta cashirkeena kusoo qaadanaynaa. allahuma salli calaa maxamed. Marka u horeysa waxaan samaynaynaa horta background layerkeenu waa kan. Mar walba oo aad shaqo aad samaynayso waa inaad copy ka samaysta kan in case ay wax kugu dhacaan ama aad si aad u ogaato wixii aad changes aad samaysay. Marka waxaan samaynaynaa isagaan ka samaynaynaa copy oo control G baan taabsanaynaa. Marka kana qufulka kaba saar. Okay, shaygii marka aad rabto inaad meesha ka qaado zoom baan dhahaynaa ayaad select garaynaysaa. waxaad ku select garaynaysaa muxuu ahaadaan allahuma salli calaa maxamed lasso tool yaad soo qaadani. kan waaye lasso tool kaa sare yaad taabanaysaa, and then waxa waaye selection baad samaynaysaa. Selection markaad samaynayso shaygu wuxuu leeyahay shadows, yacni hadh ayuu leeyahay geerarkaas. Hadhkaa xataas in aad la qaado ayaa muhiima. sidan aan dhahaynaa muhiim ah haddii in badan aan select garayno, maaha inuu intaasoo dhan la kacayo. Okay, sidan markaan dhahnay halkanaan imanaynaa edit ayaan imanaynaa. Laftirkeedu waxay leedahay shortcut
horan aad waan ogaan doonaa. Failta ayaan taabanayna oo ah control shift. Fail waxay ka dhigan tahay shaygan meesha aan ka qaadayo booska markaan ka qaado waxaad iigu buuxisaa wixii agtiisa yaalla ee inta selectionka ku jira. Marka hadda dad ujeedaan selectionka waxa ku jira waxaa waaye intan iyo intan iyo intan iyo intan uu ka soo qaadanaya colorka si uu ugu buuxiyo meeshii aan ka qaadnay bahalkan tabletkan. Okay, fill ayaan dhahaynaa. Tan modeka waa inuu normal ahaado. Opacityga waxaa waaye waa muuqashadiisa intay in leg baa rabtaa inuu opacity yacni khafiif laga dhex arko transparent. boqolkiiba boqol baan ka dhigaynaa taana. kadib okay ayaan taabanaynaa. Wareegi cabaar. tan inaad select garayso waaye maaha layerka hoose ee sourciga. layerka background layerka oo copyga ah in aan select garayno waaye. Sorry. zone baan dhahaynaa. kanaan noo select garaysnaa. mar walba meesha oo ku select garaysan iyaad shaqo ku dul haysaa. taas in aan la hilmaamin. iminka haddii halkan aan qabto oo aan shaqo ka sameeyo oo ii noqon waxay ka dhigan tahay layer qaldan iyaa ii select garaysan. marka mar walba iska sax in uu layerka aad u baahan tahay inuu ku select garaysan yahay. Okay, layerka copyga ayaa noo select garaysan hadda oo kaan rabna ah. waayo kan waxaan u select garaynaa kan baan waxaan rabnaa backgroundka markaan buuxinayno in uu kan ka soo buuxiyo. marka kan layer kama sii hooseeyo. haddii kan uu ku select garaysan yahay oo aad kan select dhahdo fill aad dhahdo wax ka sii hooseeya halkan ma jiro wax meeluu ka soo qaado ma laha. marka kan sare ayaan taabanaynaa si uu kan hoose nooga soo qaado wixii uu noogu buuxin lahaa meesha aan shaygii ka qaadnay. marka select ayaan dhahaynaa. kadib fill ayaan imanaynaa. content aware tan normal waaye. muxuu ahaadani opacitydana boqolkiiba boqol okay ayaan taabanaynaa. magic yaa dhacay. dhinacan horaan ugu dhaweeyey shadowgii iyo soo qaatay muujeedaa. si fiican baan yaan select fiican baan samaynaynaa. waayo wax markaan leeyahay shadowga waa inaad ka durugtaa intaad ka durki karto. haddaad u dhawaato shadowga waxaasaa dhacaya. hadduu si fiican u soo qaaday. okay, edit fill magiga u malaysaa wallah ka waran. waa yacni meeshan uu control D yaa taaban si aad waxan selectigan aad uga saarto. control D waa kaasa. naagtaas iminka halkan ma waxbaa yaala la isdhihi karaa waa maya. intaa yar muujeedaa colorku yar kala duwan yahay. waxaad samayn kartaa patch tool baad soo qaadani. waxaa la yidhahdaa kan patch tool yaad soo qaadani and then layerka hoosaad taabanaysa. waayo layerka hoosaad rabtaa inaad bedisho. kii hore wuxuu ahaa noogu buuxi laakiin kan waa backgroundkii kanaan rabnaa inaan bedelno. waxaan samaynaynaa sidan aan dhahaynaa and then waan soo jiidaynaa. allahumma salli calaa maxamed. ka sare select gare and then soo jiid sidaa ka dhig. uu ka ba'ay hadda iminka baashi muujeedaa. kolka hore siduu ahaa akaasa. okay, control D yaan taabanaynaa. intii yareeda caddaankii ee khafiifka ahaydee kala duwaysay colorkan iyo colorkan isku dhex laaqaysayna intiina waa kaasa waan ka qaadnay. marka before and after sawirkii soo noqda waa ujeedaa. naagtan iminka hadda sawirka marka la arko qofka viewerska indhahoodu toos waxay ugu hagaagayaan waa qofkan meesha fadhiya ee shaha cabaya. laakiin halkan markuu tablet ku yaalo halkan markuu muftaax ku yaalo halkan markuu telefoon ku yaalo xaga markay yacni meesha dhan ay wada yacni distraction ay tahay qofkii kuma mashquulayo sawirkii yacni main subjectgii. waxaa jira wax la yidhahdo main subject iyo wax la yidhahdo distraction. main subjectiga waxaa jira wax la yidhaahdo lagu buuxiyo oo sida imika soo qaad cadceed oo kale markuu qofka isku sawirayo waa main subjectigu waxa waaye waa qofka cadceed isku sawiray. waxyaabaha sii buuxinaya ee auxiliaryga ana cadceed oo kale ama geed oo kale hadduu hoos taagan yahay. laakiin asagoo geed hoos taagan hadduu qof kale ag maraya ama baaskiil oo kale ag maraya ama gaari oo kale ag marayo sawirka wuxuu noqonayaa distraction. yacni qofkii daawanayay sawirkan
indhihiisu waxaas kale ku mashquulayaan. Laakiin adi muhiimadaadu waxay tahay sawir baad iska qaaday, sawirkaasaa rabtaa inaad qofka tusto. Sidanaad dhihi kartaa. Inkastoo kasii fiican tahay, muxuu ahaadane iminka sanad u yahay in oo crop uu ku sameeyo qofka uu yacni uu gooyo wixiina uu u baahnayn. Laakiin tan iminka ma goyn karo, waayo qofkiibu ku toosan yahay. Marka haddii halkan ay wax ku yaalaan aad hilmaamto sawir ku qaaday, crop ma samayn kartid. Waa in waad samayn kartaa laakiin waa u gaabanaya qofkii intana dheeraanaysa. Marka waxaa fiican in toolskan oo kale la isticmaalo, content aware fill, ama yacni muxuu ahaadaanay content aware fill yaa la yidhahdaa. Wakaasa haddii aad versionadii hore aad haysato, intanuu kuusoo dhigaya content aware fill. haddii aad versionadan dambe cusub aad haysatana fill keliya kuusoo dhigaya. Okay, this example yani muxuu ahaadaanay marka misaashan misaal aad u fudud bay ahayd. Waxa aan meesha ka qaadayna meel wuxuu yaalay isku wada kalar ah. Haddii meesha oo waxaan aan ka qaadayn oo laba kalar uu kala yahay, bal ka waran su-aashaasaa iman karta. Okay, ayadana misaalaan u haynaa. xabad cusub aan furaynaa. sawirkan aan ayadana furaynaa. sawirkan waxaan rabnaa in aan ka qaadno koobabkan distractionka. Marka sawirkan koobkan miisku waxa waay waa beige oo kale kalarkiisu. Wuxuu kula jiraa ilaa madaxa fadhiga oo ah blue ama madow ama dark blue ah. Markaas koobkan markaan qaadayno ma saameynayaa waayo labadan kalar ee kala duwan maadaama shaygii kolka hore aad kusoo samaysay khadra uu ahaa hal kalar backgroundkiisu. Tan aan tijaabinayna marka. Okay, ta koobaad waxaan sameynaynaa backgroundka layerkan ka samaysanaa copy. waxaan tegaynaa lasso. tan iminka mujida hadda tanaa select garaysan waa qalad waa meel ka soo qaata ma laha sidii hadda nagu dhacdo kale. tan waa inaan select garayno. kadib lasso tool baan soo qaadanaynaa. intan oo dhan baan select garaynaynaa. mar walba isku day inaad la soo qaadatid maca shaarowga yani harka, waayo harka xataa sawirka uu saameynaya. Okay, edit, fill, content aware. Okay, magic. xaggaas wax yar oo waxaa malaysaa in uu distraction uu jiro, yacni waxaan ka wadaa imperfection. marka waxaan sameynaa laakiin waxaan ku saxaynaa tuulal kale aan ku saxaynaa. Okay, tan imika control D taabo. allahumma salli calaa maxamed. waxaan imanaynaa patch tool. sidan aan dhahaynaa. something like that. waxaan kaloo sameynaynaa allahumma salli calaa maxamed. san markuu yahay imika ujeedaa inuu xoogaa yar kalarku dhinacan uu si ka yar yahay. waad si yar wadi ilaa intuu ku yar fiicnaanayo. okay, uu kasoo yaraaday hadda. may okay, okay, san haddaan ku dayno oo aan waxaan isticmaalaynaa kaba soo qaad clone stamp oo ah tan. waan yar weyneynaynaa. count waxaa taaban alt yaa taaban oo meesha aad kasoo koobiyeynaysa ah. and then saasaa dhehe. waxaa xaggan aan kasoo koobiyeysanay. koobiga anagoo haysana ayaan halkan imanay. waan ku rangeynay. something like that. okay, control D taabo. intan yar waxaan sameynaynaa mix brush oo mixer ah.
yaan soo qaadanaynaa si labada kalar uu edgeka geerka uga biyo isku dhex gasho. waan soo dhaweysanaynaa sanaan leenahay allahuma salli calaa maxamed. meelahaas geerkuu ka biyinayaa. moist ayaan ka dhigaynaa halkan. saayiraan isku dhex gelinaynaa. hadda iminka markaa edge malaha. kolkii hore edge iyuu lahaa, hadda laakiin edge malaha. inta dhiban waxaan samaynaynaa burushkaan qaadanaynaa mixer brush kan ugu hooseeya ayaan qaadanaynaa. waxay ka dhigan tahay laba geer oo isku color ah laakiin edge leh ayuu wuxuu kaaga dhigayaa inuu isku kaayer dhexgeliyo kaaga yar dhigo smooth. marka hadda iminka markaan intii siduu soo geynay kolka hore wuxuu lahaa edge iyuu lahaa, hadda laakiin ma laha. sidaa markaan dhahno something like that. geeska yar inaad ujeediin ma aqaan, kor buu yar kacsan yahay. asagana waxaad samayn kartaa waan smudge ayaan ku samaynaynaa oo smudge toolka hoos baan usoo yardhaadhicinaynaa. something like that. markaasa miiskaas kolka hore suu eekaa iyo hadda siduu u eeg yahay. before after, markii hore iyo hadda. waa yacni awoodda oo teknolojiyada waqti xaadirka la joogo waaye. sawir in aad isagoo sidiisii aad qayb ka mid ah oo muxuu hadan inaad ka qaado si aad muxuu hadanay sawirka haddii kaba soo qaad iminka telefoon baa meel ku yaala, sawir baa rabtaa inaad gasho, telefoonka qof baa ku soo wacaya, aanad rabin in aad dadku ay kula ogaadaan qofka ku soo wacaya, bilnasiib sawirkii baa qaaday telefoonkaagii oo dhacaya oo qofkii magaciisa uu ku qoran yahay. marka ayada laftirkeeda telefoonka dhan baad meesha ka qaadi kartaa. marka photoshop waa barnaamij aad awood u leh yaan aaminsanahay. iminka kan inkastoo harhadh uu ku jiro isaga laftirkiisa waad samayn kartaa. quick example waxaan samaynayna iminka sidii horaan ku celinaa layerkii copyga noo select garaysan, copy baan dhahaynaa. may waxaa waaye harka mar walba inaad iska ilaaliso yaa fiican. isagana sidaasaan select u dhahaynaa. and then fill content aware fill. okay, kan siduu cajiib uga dhigay ka waran. kii hore xoogaa waan imperfection yar baa ku jira, waan hagaajinay. kan laakiin wuxuu ka dhigay yacni intaa yare geerkana waxaa waaye burushkaaba ku filanba. ilaah nugu dhahay mujida ma la arkaya xataa burushka markaa saayir ku tiraadid muxuu ahaadaane yacni geerarka mix brush markaa u qaadatid gaarkiina waa kaasa. laa intan xataa mix ku yardar waa kaasa. labadii muxuu ahaadaane koob miiskii ma yaalaan. marka intaas casharkaasaan maanta aan jeclaystay inaan ila wadaago oo ah haddii aad sawir gashaan
oo aad rabtaan in aad wax oo muxuu ahaadane dadka ayna rabin inay la arkaan, ama aad isdhahayso waxaan ma rabi yani in uu sawirkayga muxuu ahaadane iga buuqiyo, ama muxuu ahaadane dadka iga arkaan. Sidaanaad samayn kartaa haddaad haysato barnaamijka muxuu ahaadane Photoshopka. Marka waa kaasa tan iyo intaan cashar kale dib iskugu kulmi doono, waa walaalkiin Khadar Miicaad oo idin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.